horta waxa weeye buuruhu dee sida dastuurka qaranku sheegayo waa hanti qaran weeye dee hantida qaranka ee kaydkaa weeyaan marka la bixinayana waxa weeye dee inay la socoto oo la ogaado buurta horta waxaa ku jira macaadin ku jira nooca macdinta ku jira oo hawlaha guudun maaha waxa weeye dee in wasaaradda macdinta biyuhuna ay wax kale ay la socoto weeyaan waan maqlaayay imika gobolka saaxil in waraaqo miduun maaha ilaa 5 waraaqood imika la bixiyey oo buuradad dee ruqsad loo siiyey waxa weeye dadka wax lagu sameeyay waxa weeye waxay leeyihiin shirkadaas waxay dhisayaan sida madaarka kale ay dhisayaan ay dhagaxan ku dhisayaan ayaa sida waraqada ku qoran arkay waxaana weeye dee buuraha in taasina waxay keenaysaa waraaqaha badani inuu nin walba buur sheegto in buurtan anaa la soo qaatay warqad ayay noqonaysaa waana dhibaato runtii iman doonta oo ayadoo xataa waxa weeye dadkii qandaraaska qaatay ninku markuu qandaraas qaato ayaa isagoo wata cagaftii isagoo boglainkii wata ayuu buurtiina doonayaa dee dadka masaakiintii fadhanayeen inuu taana uu isagu awood ku muqono dhagax uu gurto markaa taasi waxay keenaysaa dadka waxay ku keenaysaa iska horimaad bay ku keenaysaa dadka deegaankuna cabatin badan buu imika ilaa ayaamahanba arrinkaa uu ka muujinayaa mana qurux badna xaajadaasina mid uguba maaha waxaa jirta berbere in beryahanba dhagax laga dhoofinayey dhagaxaasi meeluu u socdo iyo nooca uu yahay xataa wax cad maaha dekadda ayaa laga dhoofiya konteynaraa lagu raraa waxaana jirtaa runtii xamaaliga berbera warka laga helaa oo xaaladda kolba dalka ka jirtaa wixii dhaqdhaqaaqii dekadda ku jirta ayaga ayaa ilaa laga helaa xigmadda dhagaxa markii la raraayey dhagax habeen laga raraya waxaan xasuustaa wuu ku jira yutubyada iyo talo muuse ma og yahay ama muuse ma oga madaxweynaha qaranku ayaa markay xamaaligu yaabeen dhagaxan iyo noocuu yahay iyo dee inuu hantidii qaranka yahay dhagaxanna uu qiimihiisu dhagax qaaliya yahay ayaa waxaa halkudhigii ay ku rarayeen uu ahaa muuse ma oga amase muuse ma og yahay marka waxaan dee leeyahay war dee bal dhagaxan la leeyahay mid la rarayo iyo mid kaleba waa inay xukuumaddu ogaataa oo aan wasiirka howlaha guud iska bixinin waraaqahaasoo hadhowtay iska horkeen iyo muran dadka dhex dhigi kara oo dee nin waliba buur inuu sheegto imka ilaa 5 buurood baa la sheeganaya qaar horena dad baa sheeganayay dee waxaan waxa weeye waa asadkii waa hantidii qaranka hal la hubiyo waraaqahan ama waxaanu leenahay wasiir jooji baanu leenahay waraaqahan ummadda khilaaf bay ku keenayaan intaanay dhibaato keenin waraaqahan aad soo saarayso ee dadka loogu cayimayo buuraha ka daayaanu leenahay deegaankuna uu ka cabanayaa murankiina durbo uu bilaabmay hadalkuna uu taagan yahay ilaa imakadan xildhibaan markaa wasaaraddii iyo ciddii hawshan dawladda ma la xidhiidhay lamaanu xidhin laakiin waxa weeye dee waanu lala xidhiidhaya waanaan u sheegaynaa waanaga imikana kala hadlaynaa in badan waxaa jirta in dawladdii hore lagu canaanan jiray arrimaha noocaana marka hadday arrimihii soo noqdeen maxay kaga duwantay baad malaynaysaa dee waxa weeye dee tii hore daara ay iibiso iyo dhul ay iibisaabaa dee aynu ku naqaanay xaajadan imakee buurahana waa xaajo owguba markaa waxaanu leenahay war arrinkaasi fidnuu keenaya yaanu inagu fidin ee ha la joojiyo buuruun ha ahaadan hanti qaran qofkii u muraada ee markaa baahi u qabataana yaa walba uu ka raranayay waana in la hubiyaa dhagxantan la dhoofinayaa nooca ay yihiin iyo waxa ujeeddada loo dhoofinaya waan la hubsadaa